dhegeystayaal guud ahaan meel walba aad joogtaan oo aad naga dhegaysanaysaan kuna soo dhowaada mar kale iyo tixanaha murtida iyo maahmaahaha tixanaha murtida iyo maahmaahaha waxaynu ku eegi doonaa murtida halkudhegeedu aad tahay rag waxaa ugu liita 3 murtidaani waxa ay ku jirtay murtidii loogu soo hagaagi jiray tilmaamaha iyo liidnimada ragga taas oo ka koobneed 12 tilmaamood waxa ay xog iyo warar inaga siinaysaa kaalinta aad kaga jirto bulshada aad xiriirka leedihiin iyo sida ay kuu arkaan 3dan waxyaabood waxa ay kaliyihiin nin maqan oo aan la tabin nin jooga oo aan la tirin nin tegaya oo aan la celin ninka ragga ah haddii 3 meelood magaciisa lagu soo qaadin waxa weeye wax matare ayay Soomaalidu tiraahdaa midda koowaad murtidu waxa ay leedahay nin maqan oo aan la tabin ragga ayuu ugu liitaa nin walba oo kaalin wacan kaga jira dadkiisa ama bulshada uu xiriir kula leeyahay haddii oo maalin maqnaado bulshadaasi waxa ay dareemaysaa meel bannaan oo 100 nin ka maqan tahay waxayna isweydiinayaan su'aalo badan oo ah war hebel meeyey miyuu xanuunsanayaa mise wuu dayoobay nin doorkaasi maqnaashihiisu waxa uu sababayaa inay baaqato howlo badan oo ku xirneed tisqaadkiisa haddaba nin maqan tibiddiisa waa nin jooga ceebtiisa nin kastoo xiriir bulsho la lahi haddii uu maqnaado la tabin maqnaashihiisa markii horeba ayuu ahaa nin liita oo aan dan laga lahayn maqnaashihiisa iyo joogistiisaba midda labaad murtidu waxa ay leedahay nin jooga oo aan la tirin ragga ayuu ugu liitaa dad kastoo xiriir ka dhaxeeya waxaa caado u ah inay si siman u wadaagaan talo iyo dhaqaalaba sidaa darteeda markay arrin jirto waxaa la isugu yeeraa dhammaan inta aan laga baaqsan karin loona qilsan yahay in ay yihiin dad wax ku ool ah balse ninkii isagoo joogo aan lagu darin tirada iyo xisaabta ogoobe ragga ayuu ugu liitaa ninkaasi iska badaayay ninkii jooga Soomaalidu waxa ay ka dhowrsan jirtay meel aan looga yeerin inay iska tagaan hadda ka hor ayaa nin xantiir ah lagu yiri war hebelow tolkaaga ayaa xoolo badan leh maad u tagtid markaas buu isagoo cadeynaya inay xaalkiisa moogeen yiri nin fadhigaaga arkaya looma sara joogsado tan saddexaad ee murtida ugu dambaysa waxay leedahay nin tagaya oo aan la celin ragga ayuu ugu liitaa dadku xiriir kasta ha ka dhaxeeye waa kuwii is-afdhaafa ama isqoonsada haddii ay taa timaado waxaa kala dhex galo inta maskaxdooda degan tahay waxayna ku dadaalaan siday u celin lahaayeen kan xanaaqi ama dhahayo anigu waan iska tegayaa iyagoo maslaxeynaya balse ninkii inta uu xanaaqo kabihiisa iladay cid afka u kala qaado oo tiraado war hebelow joog laga waayo ninkaasi ragga ayuu ugu liitaa si kastaba ha ahaatee Soomaalidu waxay tiraahdaa la xibashilka isdhigtaa lagu qala laakiinse ninka aqoonta iyo kartida lahi waa uu ka fogaadaa meelaha ceebta ugu imaan karto oo sharaftiisa ayuu dhoortaa Soomaaliduna wax ay ku maahmaahdaa intay dhogortaada dhantaha la dhoorsadaa dhegeystayaal tixanaha murtida iyo maahmaahane maanta halkaa ay noo joogto ta intaa ku kulmi doono qayb kale